Horizont. Und wir möchten gegen diese Unterdrückung Dinge auch protestieren. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وحنيرة عدنان إسماعيل حرسي. وحنيرة شاكير باني وضع مانتا ساكا مكراسة عياد ضد بايسو هجومي ما هجوم يعني ضد با قبوية مكراسة سكليتا ونعناع وضع فيسبوك ساكا سكسو قلي مركا ساكا وحن كسو قرنيو وحنيرة قفكا مقع قبويديسن يا أبو يقصو درسن بدي إن kala kaxee ma dhibaankaaga iyo tumaalkaaga qabo waxaa iga rabtaa ma fahamtay wiilku soo galay horta gabay wiilku maaha marka wiilatu limaan niyo cadnaan waa ramadaan waxa la yiraahdaa niyo jooji waxa wadid ma garatay marka waxaan ku leeyahay khiyaanigu waa sheekadu waa saas ma garatay ma sha Allah nasaaix badan buu siiyay waan ka qaatay yani in ay ramadaan ay tahay oo waxyaabaha laga hadlin marka dhibaatada timaha weeyaan anako sheekaysanayna ayaa kelmad ba ka soo dhacday sheekadaas oo ku dhacay ninkaas waxa weeyaan kelmad buu ku yiri ma garata maskaxdii buu yiri ma garata wuxuu ku yiri inuu dadka gabooyaha diinta ku yar ma garata dad diinta xajista maaha طبعا wuxuu yiri habar bay ku tiri biriga hore noogu maamaay jirtay ma garata dadkan waxay xaqa dhigay yani waa diintana ku adkeen ma garata marka mushkiladu waxa weeyaan ee taala horta qofku markuu wax aan jirin iska samaysto ma garata oo waliba dee marka uu disid xaga waraacay saraadka wuxuu kornaya way lagu yiri ma garata aniguna waxaan leeyahay profile ma garata intaan dadka gabooyuhu ay way ka diin fiican dadkan Soomaalido dhan marka waxaan ku dhawaanay waxa socon meesha Soomaalido dhan ma garata dad fiican way jiraan dad fiican way jiraan dad wadaad way jiraan dad aan wadaad jirin way jiraan marka oran qabiilkaas waxaas jira waa iska caasi ma garata laakiin dee waxa la yiraahdaa anagu heerka Soomaalidu ay gaadhay wali anagu man gaarin ilaahay baan wala ku xiranahay caasugna maalin buu imanaya oo toobad ilaahay u keenaya laakiin rag baa jira dintiiba si xoog uga baxay oo meel fog qabtay qaar baa waxay gaareen waxa la yiraahdaa gabooyo waxa ma laha ma garatay taas ka fiican ummadda Soomaalida marka ku soo dhawaada xaqiiqdiina daawada ma garatay anaka anagu tuhmina markasta markay raahno warniyo xaqayga iyo waxayga ma diinta anagu yar aqoon ma leedin ayay ma leedin baba ma leedin laakiin maanta waxaan tusayaa intu aslan bad aqoonnimadu ay tahay annaka oo inaku abeena ku nooshihiin iyo khiyaala ku nooshihiin oo inaku aslan ba wax ku faantiin ba mu jira bade waxa ma inay haran wala diin wala ragnimo oo waxaan ka diisanahay dhalinyarteeda imka soo kacaysa inta waxyaabo laga dhaadhiciyo ma garata marka anigu fiidiyoga maanta waxaan soo duubay si aan ummadda amba bulshada gabooyo ay garato intaanay dhibaatada haysata aanay ahayn diin la'aan ay tahay dad wax ismooday ayaa waxaan iyaga kasii dhaadhicinaya marka generation dambe aan ugu jecel dulmo oo de wixii la yiri awow iyo filmaanta ma doonaytay ku soo kacaan waxaan jecelahay intii xaqiiqo ogaadaan intii Soomaalidu aan iyagu laftooda waxba ahayn ba qabiil kasta oo afarta waa soo sheegaya marka ay la daawada ku soo dhawaada Ramadaan Kariim xaqa wala sheega ilaahayna wala ka baqa wata anigu tanaqana marka soo dhawaada aywa waxa la yiraahdaa Faysal Xasan Jaamac waxaan ku dhashay sanadku markuu ahaa 1968 tuulada Balcanan oo ka tirsan gobolka Togdheer waxaan qaatay diinta Masiixiyadda sanadku markii uu ahaa 1995 waxaan iminka ahay nin Masiixi ah kana tirsan kaniisadda Soomaaliya ma u baahan tahay qabiilkaas abuya ya والله أنا حقيقة كهذا يا بقرت تنوها بتيو وينيد أيان حرسي
يا وأكبر معارضة للإسلام مريكان كان جوجتا وفيلمان كسميسي أقرتين قبويا معها كسو دوادا and extreme. And that the people who have that mentality and that mindset are not a minority, and they're not a fringe minority. And they don't necessarily need a group like ISIS. I mean, that might sort of give them focus, it might give them a name to claim allegiance to, but, I mean, as you said, كوحنا إنا لا ولا راجعون يا أخي كاسي سومالد كورنا سنيو قوية يا دين تكوير يا بل يجوا مسألة كيان يجوا مستعدين عشان أكل أنت الدين تبي بيان بقى عشان شوية شرعي ير أنت الدين تبي بيان الله يمرب الحمد لله والشكر لله إلى هاتو قبلنا قبوي قابوري هنا ومدى بل على صوص صار هالقف وحالي راها كريستيان نقضي ميلس وايو تلاهي أكتر من كذا ما بدولهم بقى نو هاري بدي قبل إلى طاو وقبل أنا كبويا هين كسو دوادا ودين تكبحضي. Why did you leave? There you are. Why did you leave Islam? I left Islam because I got educated. I didn't agree with the Quran being the revelation of God and Muhammad a perfect embodiment. In fact, I felt it was a questionable moral guidance that couldn't be applied to the 21st century. Those ideas mark you out as an apostate, and because of that you face magaalada Hargeysa horta waxa noo sheegtaa waxa tahay anigu niscad qabana oo ku dhashay gudoomiyaha oo lagu sheegay gudoomiyaha noocaad anigu gudoomiyaha waxaan ahay masaxlayaasha baabuurta masaxa halkan imiga aynu joogno goobta yaan ka ahay gudoomiye laakiin waxaan maqlay inaad shiici tahay magaalada Hargeysa marka arintaasi ka waran dad badan ku dagaalamay inaad shiicayna tahay may waxa la dagaalamay waxa la hadlan doona midna ma arag لكن كسر كذا اللي بكل لا سعودي هيدي كيسنا كنا ولا وأنت تشربه هي كور النوش هذا كنا وشاي والله النوش أنا كنا والله ضد بدي شجور صار نور أنا ما في مو بعانة ترى قبل كسابية يا والله أنا حريص. I remember from a very young age, you know, having to go to mosques with my father to pray. Religion was a big part in my life. Noor Warsame is a prominent and well-respected imam, which is the leader of a mosque in Australia's Islamic community, similar to a priest or a rabbi. Noor was married and has a young daughter, and for decades he's lived for his religion, holding onto a secret. There was just trauma after trauma after trauma, so... مو بعانة ترى قبل كسابية يا والله أنا حريص. السلام عليكم. عليكم السلام باي معان. مقعة. مقعي قصابينا الله يسلمك. ما شاء الله هاي. وافي عنا والله محايصة. ولا وقف عنا الحمد لله. أنا ما وافي عنا السلوك. أوكي. وحنا غبنا ورئيسك عقاله. هاي. أنكو قيمالي أما أنكو صبوري. ما دام قف صومالي طا إسلام أتاعي. أستعمل نايان كاجد جدا إنه قصكو مرسينها. إن إلي الكو حرنتها. إن أبرد في قيس. إن الجك كنت أنت كرسم. مركب الأفعال صحيح كتاب. ينو سكتة. مو بعانة ترى قبل كسابية يا والله أنا حريص. يا الوقوف عن دد أنا فاني كرينو حرق وذا سيئسي للسوق مكرتين هادو قفكو مثلا خمر أبو عاصي هادو قفكو مثلا ومخدرات عنو هو لكن قف
dhan ilaahay ka baxay qof arganimadiisii iibiyey ayaa habeenay maalinba kuu faanaya oo markay ku tiraahdo aniyo Soomaali baan nahay wax isla qabsano oo waxa hala koonaniyo diinta ayaa inagu yar dadkiinu barkaras ku soo qaadaan aqoontiina isku yar ma in xataa dastuurka Soomaaliga ay maanta lagu dhaqmo nin gabooya baa qoray ama dhibaana baa qoray subxaanaka ya casiim ya akhi dadkan waa la yaabaysaa Soomaaliya markay ay marisay oo dawladda labaad ee adduunka Afriqiya ahayd nin tumaalahay oo gabooyahay marka waxaan la yaabsanahay dadkan Soomaaliya baabiyey ee hoos u dhigay ee habeenay maalinba ku faanay ku leh diinta ka yar aqoonta ka yar war haddii diintu aaway naga yar tahay dagaal aan noqon nahayn sidii oo kale oo heelin leh xabad naga cararta hadday مثلا aqoon lahayn de Soomaaliya hagaajin lahaydeen maanta abaabisen marka ma fiicna in la isku faano adigoo xarigaaga iisi loo soo qabtay uu yahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan baaq waxaan ugu darayaa wiil kasta oo dhalinyaro oo gabooya ku faan waxa tahay yaani wax qalad laga dhicin oo la diin iyo aqoon la'aan oo xaqiiqda meesha taala haddaa midowdiin dadkan ninka ku horeynaya haddaa midoobi weydiin saasun baahanaysiin mid doonaya niyadda kaa jabiyo iyo filmaan kuula yimaado fideoga taariikh ka dhigo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh